أرقب عاجلا وداني قاقا يالكا وبلو نكي قندهاي سالو قراءة أرقب عاجلا وداني قاقا يالكا وبلو نكي قندهاي ساقاب قلو قراءة تي 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 قبر عاجلا وداني قاقا يالكا وبلو نكي قندهاي ساقاب قلو قراءة تي 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 قاقان يالكا واي أبتلا فيكتوريا قبر عاجلاي وذاني قاقا يالكا وبلو نكي وقرايا لوقي حدونا hasta la vittoria sempre cacaiace sono ad mel bajuk يالكا وبلو نكي قندهاي سالو قراءة أرقب عاجلاي وذاني قاقا يالكا وبلو نكي قندهاي ساقاب قلو قراءة تي 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 قبر عاجلاي وذاني قاقا hasta la vittoria sempre cacaiace نكي قندهاي ساقاب قلو قراءة تي 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 قاقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hasta la vittoria sempre cacaiace jiilka saddexaad meeshaad joogtiinba waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ugu horeeyo fanaanka caanka jaajuumow qabarka uu ila wadaagay inuu qabar caajil yahay iyo dood noo dhexaysay aniyo jiilka saddexaad qaaqaayaasha muqdisho jooga waxaan halkan aad iyo aad ugu horeyntii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay jiilka saddexaad ee caasimadda muqdisho degmooyinkeedoo idil ku nool ee ah qaaqaayaasha g3 si qaas ahaana waxaan aad iyo aad ugu hambalyeenayaa qaas ahaan horseedayaasha the best horseed qaaqaan g3 bondheere libaaxo shir iyo shirib iyo wax walba waan ku wada hadalnay shir skype-ka ah aan kula wadaagay dood dheer oo ay iga codsadeen in aan duubin oo ay ila doodeen ay doonayn sumco iyo wax walbo ama dhibaato lagu yeelo ay dhanka dowladda cusub nabad iyo nolosh oo aan idhi 2018ka waxay igu yidhaaheen doodeennu dhanka dowladda ayay ahayd waxay yidhaaheen waan ku faraxnay maalintaa tiri nabad iyo nolol dowladda cusub ee nabad iyo nolol kowga waa mudane ra-iisul wasaare kheyre iyo taabid guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada xamar sidii aan wax u wada dhignay waxay dhalinyarada igu yidhaaheen oo doodan ku doodayna waxay yidhaaheen banaadir deegaan iyo degmo iyo gobol waxay igu yidhaaheen banaadir waa soomaali waxay kaloo igu yidhaaheen shabeellaha hoose afgooye marka baraawe waa soomaali okay baana waxay igu yidhaaheen banaadir nin wuu degi karaa tijaarada uu ka furan karaa wuu ka guursan karaa soomaaliya dhan ka dhexaysaa laakiin gobolka maamul goboleed waa gooni waa in dadka wax laga siiya shabeellaha hoose afgooye marka baraawe waxay yidhaaheen waa dhul soomaaliyeed nin walba wuu degi karaa wuu ka guursan karaa beer buu ku yeelan karaa dukaanuu ku yeelan karaa guriguu ku yeelan karaa laakiin degaankii maamul goboleedka waa in dadka meesha wax laga siiya waxaanu ku faraxnay yidhaaheen nabad iyo nolol 2018 aad qaadatay aad tiri adigiyo annaguba dowlad ma nihin dulmi iyo xaq baad ka hadashaa oo aan kugu taageernaa kugu raacnay waxaanu diidanahay dulmi iyo xaq darro iyo cadaalad ayaan doonaynaa ee arrimaha dhalinyaradu aan kaaga warramaynaa aan gororba kaaga warramaynaa dowladdu
ayidaadeedu waxa ka socdo waxay ka qaldan iyo waxay ku xun tahay u sax nabad iyo nolol wixii lagu sheegayay qabar lagu siinayo iyo caro iska daa annagu mar haddaan nahay qaqaayaasha adaan ku matelnaa waxaan nahay indhahaagii waxaan nahay jasadkaagii waxaan nahay qalbigaagii aad baan ku raacsanay taageero keliya maahane aabbihii hooyaa noo tahay arrimo badanaan ka doodno oo dhallinyarada waxaa ka soo baxday dhallinyaradii igu soo kordhiyeen oo hadal aad u wanaagsane oo aan dhallinyarada ka qaatay waxaan ku qaldanahay oo aan dhallinyarada ka qaatay inay caay igu diidan yihiin oo aan dhallinyarada ka qaatay inaan qabiil isku mashquulin oo aan dhallinyarada sidii khudbadii aan usoo jeediyay nin yarkay codsanayaan waa niga raaligelinayaa wixii iska bedelay maalinta laakiin iminka dood dheeraan qaadanay waxaan rabaa inaan usoo jeediyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane taabid oo ah duqa magaalada muqdisho oo hadda la odhan karo gobolka banaadir guddoomiyaha iyo duqa magaalada wuxuu matalaa soomaali oo idil inta caasimadda joogto ayuu mas-uul uga yahu madaxweynaha u dhigmaa oo asaga laga doonayaa xaqa iyo xaqsoor iyo kashifaad iyo inuu musuq maasuq la dagaalamo dadka la xisaabtamo waxaa kaloo oo aan aad iyo aad halkan rabaa videogana ugu soo gudbiyo inta mas-uula inta xildhibaan ay dhegaystee hoos iyo luuqii soo gasho inay arrinkan ay dalbanayaan jiilka saddexaad ay igala hadleen anoo aabooda ah oo arrin aad u wanaagsan ah oo aan dood dheer ka qaadanay ee maanta haddii la ilaaliyo xaqa iyo cadaaladda iyo musuq maasuqa lagu jari karo waa muhiim waxaan la hadlayaa ra-iisul wasaare kheyre oo yiri waan la xisaabtamayaa wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda iyo kulli dhalinyaradu way soo cawdeen aniguna waxaan ahay afhayeenka dhalinyaradu waxaan wakiil uga ahay dhanka dowladdu horta waxaan usoo gudbinayaa raaligelin dhalinyaradu waxay yidhaaheen dowladdu waa dowlad fiican khaasatan dowladda ra-iisul wasaare kheyre iyo waxay gu yidhaaheen guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada taabit ha naga taaban maamulkiisii iyo guddoomiye gobol iyo meeyarka anigu taabitna lama hadalo kheyrana lama hadlin laakiin afkii dhalinyaradan ku hadlaya waan qaatay xaq bay ku hadleen cabasho yaraa jirtaan kuusoo gudbinaynaa yiraheen haddaad doonaysid taa kasoo hadal waan kuu fasaxay dhalinyaradu maantu waa muruqmaal dhalinyaradu maantu badankooda jaamacaday kasoo baxeen oo gobolada soomaaliya dhe ninka boorame jaamacad ka soo baxo muqdisho usoo shaqo doontaa ay yidhaaheen ninka hargeysa jaamacad ka soo baxo muqdisho usoo doontaa ninka puntland jaamacad ka soo baxo muqdisho usoo doontaa ninka burco jaamacad ka soo baxo muqdisho usoo shaqo doontaa oo fursad weyn oo tii qaliijka oo kale ka furmatay wax badda ku imaanaya waa dadaan wax baranaya waxay igu yidhaaheen raas caseer ilaa raas kamboni tuulo iyo magaalaba waa maanta waa mahad ilaahay yaa been lagu sheegin qaqaan maamul goboleed iyo wax walba jaamacadaha ka furan waxbaa soo baran waxaanu maanta usoo dhaadhacnay calooshii soomaaliya oo ah muqdisho oo fursad weyn ah oo baal dheer oo maanta janis ka jiro oo booming ka jiro oo dib u dhiska central governmentka iyo degmooyinka iyo xafiisyada iyo meel walba iyo tuulo wadaba iyo shirkadaha iyo ajnabi iyo safaaradahaba ay shaqo ka banaan yihiin ay yidhahen waxay yidhahdeen aad baan ugu faraxsannahay dowladda kheyre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo dowladda farmaajo iyo ciidamada inay fursad jiraan ay jirto inay jiraan wuxuu yiri ay jirto in aad kuliyadda militariga imaaraadka geli kartid kuliyadda militariga ay geli kartid turkiya in xataa dibadda lagu qaado haddaa shaqa doontii wax walbo marka aad iyo aad baan ugu farxay arrin baa jiro ay yidhaahaan oo muhiima oo lafdhabar ah oo bayska ah oo adigaa naga afgarad badan oo noo sheegaysa hadday jirtid hadday jirin ayaan kuusoo gudbinaynaa yidhaah waxay yidhaaheen muqdisho shaqo way buuxdaa muqdisho shaqo way buuxdaa muqdisho hay-ado badanaa ka furmay NGO badan shirkado badan muqdisho maanta imaaraadka iyo khaliijka iyo sacuudiga ayay ka shaqo badan tahay ugu yidhaaheen dhalinyarada ninkii wax barto waxbuu noqon karaa aad iyo aad baan ugu farxay arrinkaan ka naaqishnay waxay yidhaaheen hal dhib baan doonaynaa inaad dowladda usoo jeedisid marka baaqaygan wuxuu ku socdaa ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiyaha gobolka banaadir
ciyaalka waxay yidhaaheen sharuud baa jirtay yidhaaheen oo loo baahan yahay sharuud na lagu xiro maxa walba sharuuddan hortaagan waxa weeyaanay yidhaaheen waxaad u sheegaysaa guddoomiyaha gobolka ayay qusaysaa iyo khayroo yidhi hay-ad walba iyo wasaarad walba oo baaraya waxay yidhaaheen turbitaariyada immigrationka CID-da iyo gobolka banaadir dhib weyn baa naga haysto musuq maasuq weyn ee dhibaato weynah baa jiro oo loo baahan yahay in la saxo maxaa dhacay guddoomiyaha gobolka asaga xafiis ma fadhiyo ra-iisul wasaare khayre asaga xafiis ma fadhiyo oo waa madax sare laakiin heykalka dowladda iyo furuucyadeeda dhibaataa naga haysto waxaana soo qaadanaynaa ay ii sheegeen meesha ugu habboonan dowladda u sheegayo guddoomiyaha gobolka u sheegayo ra-iisul wasaaraha u sheegayo waxa noogu weynay yiri haddaan shaqo doonaysa waxaa inaad ID card Soomaali leedahay ID cardka gobolka laga qaatay iyo immigrationka musuq maasuq badanaa ka jiro waana lagu dhibaa tributaariyada iyadana canshuuro meelaan ku bixino waana lagu dhibaa wasaaradda shaqada waana lagu dhibaa waxa ugu weyn markaad shaqo doonaysa waxaa loo baahan yahay warqad ka soo baxdo xafiiska ee criminaal la dhaho lambar 4 ku yaalo meeshii Cusmaan Caana Geelo la dhaho dambi baarista ee laga doonaya cadeen inaad nadiif tahay oo aad waraaq ka soo qaadato xafiiskaas markaas kaarkaagii iyo xafiiska waraaqda way ku dhamaatay talabkaagii shaqada wuu buuxsamayaa shaqadii karta warqadda lagaga baahan yahay oo aad shaqada ku galaysid waa warqad dambi la'aan inaad oo dambi baaris aad soo martay xafiiska warqadda dambi baarista waxa weeyaan qiimaheedu $10 dhibta naga haysto waxa weeyaan CID-da markaad tagtid saf dheer oo lagugu kadeedayo ilaa 500 oo qofood saf ku jiro queue baad galaysaa CID-da miis banaanka yaallo ayaad galaysaa waraaqdiyaa lagaa qorayaa miiska markaad gaartid waxaad bixinaysaa rasuumkii $10 warqaddii ayaa lagaa aqbalayaa waa lagaa qaadayaa qol baad lagu gelinayaa faraha lagaa qaadayaa faraha markii lagaa qaado nin meelsha fadhiyo xafiiska ah oo teeb fadhiyo oo dul fadhiyo ayaa magacaagii baa la garaaci ID-gaagaa la gelinayaa waxaa soo baxayso inaadan dembi lahayn ood u jeedid magacaaga ku qoran haddana meeshii waxa ka bilaabmayso isbaaro ninkii wuxuu kugu oranayaa orod qolkaa kale gal sug waraaqdaadi meel yaroo goolad ahoo la fadhiisto waxaa ku imaanayso gabar xafiiska ka shaqaysa ujeeda gabdhihii faraha kaa qaaday ay ku riwida fadhiyo joogay waxay ku oranaysaa warqadaadu ma maantaad doonaysaa mise waa inaad sugtaa 3 beri 7 beri de qof dhibaataysan oo berri shaqo raba inuu tagaa tahay waxaad oranaysaa maantaan doonayaa waxay ku leedahay $20 AFC ku soo tuur warqadaadii haddaad qaadanaysaa dee awalba $10 ninaan shaqaysanay muqdisho joogo €50 lagu masruufo reerkiisaan u badannahay markaasaa oranayaa walaalay 3 iyo 7 beriyaan sugayaa markaasay ku leedahay dee haddaa $20 AFC ku tuuri karin iska tag markiibaad ka soo baxaysaa waraaqdii waxaad u soo noqonaysaa 3 beri ama 7 soo noqaa lagu leeyahy 7 beri haddana waxaa lagu oranayaa waraaqdaadii way luntay dadku way badan yihiin waan raadinay waraaq cusub soo sameyso safka soo gal safkaad galaysaa 10 kalaad bixinaysaa haddana waxaad ku soo noqonaysaa in lagu yidhaaha $20 EFC ku dura digala 3 beri iyo 7 maalmood sug adigu un way qasban tahay 10kii lagaa qaatay iyo $20 inaad bixisid ee EFC haddii kale weligaa waraaqda ma helaysid marka waxaan kuu sheegayaa uu yidhi
talabka ay dhalinyarada leeyihiin waa ku faraxsanahay dowladduna sidaa moodid maaha waa dowlad dhib badan haysto oo shaqo abuur ku jirto wax walba ku jirto nabad iyo nololna dowladdan waa ku haysanaa habaqaqaan xasan kheyre ka wargeli in xafiisyada tributario xafiisyada immigrationka xafiisyada c I d da xafiisyada gobolada siduu u ballan qaado uu yidhi la xisaabtan musuq maasuq waa la dagaalayaa annagu waxaan haysto musuq maasuq wax ka weyn waxaan haysto $10 dhib baan ku helnaa dad jaamacado ka soo baxnaan nahay waxaan u jeednaa transparency koob cad inay dowladdeenu miraayad naga tuseyso inaan horumar iyo qaran gaarno shaqo kastana loo ogol yahay inaan galno in dad fara badan ay u badan yihiin c I d da hablo mursado ah oo maanta iyaga dowladda ah ay u badan yihiin rag kaloo mursade iyo abgaal iyo habargidir qolo walba isku jirto annaguna waxaan nahay midhibaan jareer gadabuursi isaaq habargidir abgaal qabiil walba waan leenahay waxaan ku leenahay ma leh nin qabiil iyo tol wax loogu dhammaynayo ma leh laakiin waxa keliya aan kaa codsanaynaa aabaqaqaan u gudbi qabarkan taabid iyo ra-iisul wasaare kheyre una mahad celi fursadda ay maanta muqdisho ka fureen inay u dhigmato dubay iyo sacuudiga in maantu aysan jirin dhalinyaro baahanayso militariga iyo waxaa la sheegaya iska dhaafay saraakiil ah maanta muqdisho dhalinyarada jaamacadda ka soo baxday hay-ad ka shaqeynayo maaha sidii waagii siyaad bare 100 iyo 200 lagu shaqeynayo aniga waxaan soo helay shaqo aan qaadanayo jaamiciya ahay $2,000 aniga waxaan bartay informatic waxaan qaadanayaa $1,800 aniga waxaan ku shaqeeyay 3 bil oo tijaabo ah waxaan qaatay $600 yurub lagama helo fursadda muqdisho ka jirto laakiin isbaaradaa dhib nagu ah xataa haddii maanta aan tala ka soo dhiibayo marka waxaan la hadlayaa taabid iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaare kheyre uma baahno inuu maanta control sameeyo tributaariyada maaliyadda dad wax bartay waaye taabid sidoo kale uma baahno inuu xafiis walba ka degalama ordo waxaa loo baahan yahay in la sameeyo barnaamij ay dowladda ku shaqeysa wax ku controli karto maanta heer baa la gaaray soomaaliya inay technology to EVC wax lagu tuuro annagu maanta waxaan xareysanaa sojourno residence markaad xareysid residenceka waxaa lagu siinayaa lumber email ah online ah onlinekaaga kala soco hadday soo baxdo ballanta onlinekay kugu soo dhacaysaa dee ninkii kuma daahin karo ninkii madaxda ah markuu saxiixo online uu gelinaya waxaan ka codsanayaa warqadan ee la oranayo $10 ee caddeynta dambi baarista laga qorayo online dowladda ha ka dhigto online ha ku dalbado $10 online EVC ha ugu tuuro rasiidka online ha ku qaato saf ma jirayo wax ma jirayo 21 century yaa ku jirnaa adduunka ka horeynaa online ha ugu soo dhacdo warqadda emailkiisa ha ugu soo dhacdo arrinkan isbaarada ee musuq maasuqa haddii lala dagaalamo soomaaliya way horumaraysaa guddoomiyaha gobolka ra-iisul wasaaraha informatic isticmaala dad u yeera waddankan wuxuu ku hagaagayaa musuq maasuq lagula dagaalami karaa in lagu shaqeeyo online baasabora visa maanta online lagu dalbado baasabor in online lagu dalbado bitaaqad in online lagu dalbado warqad kastoo caddeynta in online lagu dalbado warqad kastoo xataa qabiilooda dhaqameed inay online naqato oo dhalinyarada la dhicin daawaan dowladda kula talinaya ninkii videoga arko ha u gudbiyo ra-iisul wasaaraha ha u gudbiyo guddoomiyaha gobolka banaadir dhalinyarada ilaa hadashana waxaan leeyahay hastala victoria sempre qaqaayaasha hastala victoria sempre qaqaayaasha shuura beenanana waan ila talshanaya hadda kadib intaan video soo duubin isoo wargeliya anna markaa soo duubayo habeenkii waan isoo wada wacayaa giddigiina wixii qalada iga reeba adinkaa meesha goobjoog ah aan isku duubnaano aan waxda raadino shaqooyinkiinana waad ku mahadsantihi inaad iisoo sheegteen aad iyo aad baan ugu mahadsanaya ra-iisul wasaare kheyre iyo taabid intaa iga sheegteen intaanna waa u gudbiyey adinka u tuura facebook ay ku jiraan muqdishoa joog videogayga dadka la wadaaga hastala victoria sempre qaqaayash mac salaam waana mahadsan tahay dowladda muqdisho